Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta kusoo dhowaada casharkan oo ku saabsanaan doona qaabka ugu wanaagsan ee imtixaan loo diyaariyo. Waxaan ka hadli doonaa dhowr qaybood oo aad muhiim u ah oo aan rabo inaan videoga nuxurkiisa kusoo koobo. Qaybta koowaad waxaa aad ugu baahan tahay in aad mar walba jabtarka aad dib u akhriso, ma ahan oo hoosta ka xariiqato oo highlight gareyso oo kalaro kala duwanaa ku sharaxdo. waxa aad muhiim u ah oo ardaygana laga rabo waxa waaye markuu cashar akhriyo siba ama presentation uu macallin bixiya noqoto oo noteskiisa ah ama book jabtarkiisa oo loo diray inuu soo diyaariyo uu akhriyo. muhiimadda waxa waaye marka aa casharka ama dhex maraysid jabtarkaas ama aad dhammaysid buugga isku day maxaa ka xusuusataa, maxay ahaayeen fikradaha ugu waaweyn ee casharkan hadda aa akhrisay, maxaa hore u taqaanay, maxaadan hore u aqoonin, maxaa kugu cusbaa. marka qaybahaas su-aalahaas aa isweydiiso waxaad dib u xasuusataa qaybaha ugu muhiimsan oo jabtarkaas ka koobanaa. ma ahan inaa xaraf xaraf ama ere usoo xasuusatid, laakiin waxaa muhiim ah in aad maskaxdaada aad memerigaaga uga shaqaysiiso, maadaama dib u xasuusintaas oo aad maskaxdaada dib u xasuusanayso waxay kaa saacidaysaa in aadan hilmaamin casharkaas ama qaybtaas oo markaas aad soo xusuusatay. midda kalena ha ka baqin inaa marka ugu horeysa khalad geshid. waa sax, khaladaad badana dhacaya, wax badanaa kala hilmaamaysa, laakiin inta yarta ah markaas xusuusatid way ka adkaanaysaa inaa 2 mar ama 3 mar akhrisid. waxay ugu wanaagsan tahay ma hilmaamaysid intaas. waxaa samaynaysaa jabtarka dib ugu noqonaysaa 5 daqiiqo kadib markii aad isku dayda inaa wax ugu badan xasuustid. haddii aa qalin iyo warqad qaadatid oo aad inta qodob aa xasuustid aa qortidna way kasii wanaagsan tahay. waxay kaa saacidi doontaa 2 qaybood, mid inaa maskaxdaada ka keentay, midda kale inaa qortay. qasab maaha inaa isla ereyadii iyo noocii u qortid, laakiin fikraddii ama conceptigii inaad haysid muhiim waay. waxa ugu badan oo dhalinyarada ay ka cararaan ardayda markay wax baranayaan waxaa ka mid ah waxa la dhaho pre-test ama test. macallin ha ka sugin inuu imtixaan kuu diro. buugga marka ama jabtarka ama casharka aa qaadatid isku day inaad raadisid imtixaanaad sambal ah oo imtixaanaadkaas aa isku daydid inaad samaysid. marka ugu horeysa waa khaldeysaa, laakiin marka dambe oo aad fiirisid jawaabaha iyo su-aalaha oo aad dib ugu noqotid waxay u badan tahay 80% 90% inaa wada saxdid. waxayna kaa saacidaysaa memerigaaga inuu hormaro oo mar walbo aad maskaxdaada adeegsatid si aa wax usoo xasuusatid oo aadan ku tiirsanaanin inaad maanta dhan casharkii aa akhriso, ku celceliso, xifdiso oo saas ku xifdiso. laakiin haddii aa isticmaasho qaabkan kale way kaaga fududaanaysaa. qaybta kale oo xigta isagana waxa waaye ha sameynin jabtar inaa mar akhriso isla maalinkaas haddana inaa mar labaad iyo mar saddexaad aa ku noqoto. waxaa ka wanaagsan inaa buug kale iyo cashar kale jabtaradiisa akhriso oo isla maalinkaas aadan akhrinin. waxay tan kaa saacidaysaa hadhow waxaa sameynaysaa waxa la dhaho inta badan waxaa jira horta waxa la dhaho forgetting curve waxaa la dhahaa wax kasta oo aan maanta barano waa hilmaameynaa 24 sac kadib. 48 sac kadibna wix ugu badan waa sii hilmaamaysaa. almost 2 maalin marka ay kaasii dhammaatana waxay u badan tahay inaad waxba aadan ka xasuusan. waxaa u baahan tahay si marka hilmaamkaas aan uga hortagno maanta casharka jabtarka akhrisid waxaa isku daydaa in aad dib 3 cisho kadib aa ugu noqotid oo aa isla tekniigii markii ugu horeysa oo aan kasoo hadalnay ahayd in aad naftaada imtixaantid oo buugga isku laabtid oo dib aa usoo xasuusatid. isku day haddii aad 3 cisho kale kusii darto oo maalinka 7aad aad sameyso muraajacada 3aad, waayo kii 1aad waa soo sameysay, kii 2aad waxaa sameysay 3 cisho kadib, kan kalena maalinka 7aad aad sameysid oo isbuuc gudaheed jabtarkaas oo adiga aad naftaada dib u weydiinaysid meelaha ugu muhiimsanaa conceptiga, weligaay allaha ma hilmaamaysid. maalinka imtixaankana waxaad isleedahay waxaan intee ka imaanayaan markay qorist, waayo waxaa naftaada ku edbisay inay soo xusuusato konseptiyadii ugu muhiimsanaa ee jabtarkaas oo lagaa rabay. qaybta xigta waxa waaye marka uu qofka diyaarinayo maadooyinka qaar
maadooyinka qaar sida math oo kale marka xisaab oo kale ku jirtid waxay leedahay problemyo kala duwan formulooyin kala duwan waxaa samaysaa 2 jabtar ama 3 jabtar formulooyinkooda dhan hal mar wada qoro hal mar isla practice garay problemyada kala duwan ee aad practice garanaysid maskaxdaada kobcinaysaa waxayna saacidaysaa in aad noqoto qof problemkii walba la soo hordhigay jawaabtiisa hore ka soo saari kara xooga ha saarin hal qayb inaa muxuu ahaa barato waxaa samayn kartaa math iyo physics oo kale oo hal jabtara inaa isla diyaarisid markaa imtixaan diyaarinaysid sidoo kale waxaa aad muhiim u ah oo ardayda inta badan ayna sameynin inuu ardayga break qaato break waxa ku fiican oo la dhahaa inta badan ardayga concentrationkiisa focuskiisa wuxuu joogaa 25 mirir dadka qaar waxay dhihi doonaan 25 mirir aad bay igu yartahay waa sax laakiin waxa wanaagsan inaa 25 daqiiqo 10 si joogta u akhrisa adoo focuskaaga xooga saaraya oo aan meelo kale iyo mobile iyo wax kale ku mashquulsaneen oo ama dad kale ayna ka hoos hadleen waxaas aan ku jirin 25 oo aad wax akhrisid waa adigoo dhameeyay 10 page 12 page 15 page ku dhawaad qof walba waxay ku xiran tahay sidoo wax u akhriyo oo kadibna 5 daqiiqo ee ku xigta isweydiiso oo aad dhahdo maxaa hadda akhriyay maxay ahaayeen fikradihii ugu waaweynaa maxaan hore u aqaanay maxaanan aqoonin maxaa igu yara adag oo aan fahmi lahay aan u baahanahay inaan arday weydiiyo ama macalinka aan dib ugula noqdo 5 daqiiqo kale intaas uga faa'iideyso 30 daqiiqo markaas waxaa ku qaadatay in aa casharkaas qaybtaas akhriso 30 daqiiqo kadib 5 daqiiqo oo break ama 10 daqiiqo qaado laakiin 10kaas daqiiqo ha noqoto in aad jirkaaga kala bixbixiso ama aad jimicsato ama aad qolkii ka baxdo oo aad banaanka soo socsocoto oo wax kale oo activity aad samayso laakiin ha noqonin isla markii inaad 30kaas daqiiqo kadib aad ku boodid inaad TV shidatid inaad mobile soo qaadatid ha sameynin waayo concentrationkii oo waxbarashadu weli wuu socdaa waxaana sidoo kale aad ku saacidaya inaad waqti fiican seexatid hurdadan waxay kaa saacidaysaa waxa maanta dhan akhrinaysid maskaxda ayada haddana dib downloading u sameynayso oo wixii dhan soo dejinaysa marka qaar waxa aragtaa laga yaabaa qof maanta dhan shaqadu haya ama wuxuu haya ku sheekeynaya qofkaas xoog buu geliyey iyo juhdi dhammaystiran shaqadaas uu markaas hayay waxay kaa saacidaysaa hurdada aa waqti fiican seexatid ama 7 saacadood ama 8 saacadood waxaa akhrisay in ay maskaxdaada ku sii jiraan oo aad maalimo dheeraada sii hayso waxaan rajaynayaa qodobadan aad uma faahfaahinin laakiin waxaan u soo gaabiyey in aan ka dhigo qaybtan khulaaso yar oo ah qaabka ugu wanaagsan ee imtixaan loo diyaariyo waayo waxaan arkaa arday badan oo weli ku dhegan in ay casharka dib u akhriyaan oo maalinkii dhowr jabtar mar walba uu dib u akhrinayo uu highlight gareynayo buugga dhan wada kalar yahay marmarka qaar kalarka waa u baahnaan kartaa meelaha qaar laakiin ma ahan inaa pageka dhan waxaas kalaraysid qasabna ma ahan inaa baaragaraafka xitaa 2 mar 3 mar 4 mar akhrisid hal mar oo maskaxdaada joogta haddaa akhrisid marka kale waxaa u baahan tahay keliya inaa buug isku laabtid oo aad weydiisid maxaa akhriyay xitaa hadduu uu yahay 10 aad dhegaysanaysid videoga boosgarey hadda ka bilow waxaa samaysaa videogan jooji waxaa soo xusuusataa qodobkii ugu horeeyey muxuu ahaa waan ogahay waxaa leedahay waa igu soo boobsiisay isku day qodobkii adoon videoga dib u celinin inaa xasuusatid waayo waxay kaa saacidaysaa maskaxdaada maskaxda waa sida muruq oo kale muruqa inta badan markuu dhaqdhaqaaqo uu wax qaado oo aragtay qof markuu jiimka wax badan uu joogo muruqo waaweyn oo dhisaa micnaheeda waxa waaye wixii lagu celceliyey waayo maskaxda haddaa ku celcelisid in aad wax ka soo saartid maanta dhan aad wax ka doonatid oo aa khaanadaheeda wax kala soo baxdid way fududaanayaan khaanadahaas inaad furayaashooda baratid isku day hadda videogan boosgare istaaji isku day inaa xusuusatid muxuu ahaa qodobkii koowaad aan ka hadalnay muxuu ahaa qodobkii labaad qodobkii saddexaad kii afaraad iyo kii ugu dambeeyey oo hadeertaan oo ahaa in uu qofka waqti fiican jiifto